orange asiga mar walba magaalada xor ayuu u mari jiray laakiin waxaa daba dhigtay inuu raadin jireen Simba iyo Sam laakiin asiga mar walba ay qabtaanba ay kale baxar kali jireen askarigani hore ayuu ka arkay oo dahabka xirxirteen kadibna waa uu xiray labadan sidaas ayaa xabsi loo geeyay orange sida caadadiisa ahaydba asiga noloshiisa ayuu sidaas u sii watay Sam iyo Simba meesha ayay ku caajiseen laakiinse Sam asigoo dhididkiisa tiraya ayaa waxaa ka soo dhacay sibir xasuus ah kadib labadood waxay bilaabeen inay isku sheekeeyaan waxyaabihii hore soo maray xilliga iskoolka dhigan jireen xilliga iskoolka Simba wuxuu ahaa arday wanaagsan mar walba waxbarashada ayuu jeclaan jiray fasalkiisana wuxuu ahaa fasalka saddexaad ee maalinta iskoolka uu horeeyay ardayda dhan way ka wada heleen dunida waxaa soo maray laba qofood labadoodan tiktoker ay ahaayeen waxaa la gaaray xilligu soo galay mid ay dadka idilka wada labadooda marba iska masiiri jiray xilligu rabo inuu iska kambiyo waana Sam naga soo kal yaa yaqaan ninka adduunka u aqli badan aniga haye sheeg waa abi macalin Sam aad ayuu ugu xumaa arrintaas sababtoo ah wuxuu rabaa qof walba fasalka cusub inuu isbaro wuxuuna ku bilaabay Simba inuu kartareysto wuxuuna uga hanjabay inuu dili doono laakiin Simba midtaasi cabsi ayaa u ahayd cashiradiisa ayuuna bilaabay inuu iska qabto markii la gaaray xilli bareeka Simba waxa uu arkay Sam oo banaanka sii sugayo dhib fara badan uu u geystay kadib asiga waa uu xanaaqay waa uuna dilay sidaasna Sam ayaa ku cabsaday oo Simba ayaa laga cabsaday fasalka dhan dadka dhigtaan way la yaabeen arrintaas meeshasna waxaa ka bilaabatay saaxiibtinimada Sam iyo Simba sidaas ayaan ku saaxiibeen laakiin ayaga mar walba budco ayay dhibi jireen mana jecleen asiga inuu mar walba arko wana ka carari jiray Sam iyo Simba arrin la yaab arkeen waxay arkeen budcoogii dhibi jiray waagi iskoolka inuu ahaaba askarigan askarigana markiisa waa uu ka aarsaday dib aad u laabano markii kiimikooyinka burburinayeen kiimikayaashaas isku tarsameen waxaa ka dhashtay Mr. Orange subax kaleete iyo Simba oo jiifo ayaa waxaa soo wacay tiktoorkii wuxuuna u sheegay inay qasab tahay inuu soo qabto Orange oona jiif u yaalin
asigana waxa uu bilaabay inuu istiyaariyo. tababar kadib waxaa la gaaray xilliga uu kicin lahaa Sam, laakiinse Sam aad ayuu istiin u ah sababtoo ah wuxuu u maleynayay inay xad tahay. Simba laakiin markas asii waa soo wacay waxaana loo sheegay inaysan fadhi u yaalin. Orange ay raadinayeen fadhigooda ayuu u imaaday laakiin asiga hurdo ayaa wixiisay. sidaas ayuu u sii jiiftay. Sam iyo Simbane labadooda way ka daba jiifteen. TikTokii soo wacayne asigane sidii ayuu u jiiftayba. aniga xataa hurdo ayaa heesa. Bye.